meel lala fadhiistaa ma jirto oo meel kastaba Cabdikariin Axmed Mogaaleed ku xidhay waa muurta ay ku saabsan tahay faalladeena murqaanku waana qalinkiina bahalkii oo murqaan bila fadhiya salaasada maanta salaasadeedii nafar Abubakar Muuse oo nugula murqaamaya masallaha ayaa habeennimadii kaadii qabatay dabeedna wuxuu doonay inuu ku soo dhiijiyo meel madow nafarkii Abubakar Muuse oo murqaansan ayaa waxa uu qaatay tooshkii buu shitay waxaana uu damcay inuu ku soo dhiijiyo meelaha madow ee ka dambaysa masallaha aanu ku murqaamayno ilaa waa nin sita toosh uu shitay meeshuu istaagaba waa leyd ilaa isagaaba toosh baxaya sitee cabaar buu warwareegay isagoo daydeeyo meel madow oo ku dhiijiyo oo mehelayaaba meel madow ilaa isagaaba toosh baxaya isdaba sitee nafarkii Abubakar Muuse oo aad u murqaansan ayaa goor cabaara daydeeyay meel madow markii uu ka quustay ayuu dib noogu soo noqday wuxuu nagu waryaadheen adkaatay maba jirto meel lala fadhiistaa meel kastaba dawladda Hoosaaleed ku xidhay oo intuu yimi Cabdikariin Axmed Mooge magaaladu waxay wada noqotay leyd 2 saac iyo badh baan daydeeyay meel madow hadda waa nin sita tooshkii siyaasadda oo talaata xaajaar oo baxaya ayaa kule meel madow aan ku dhiijiyay waan waay meel lala fadhiistaa ma jirto oo meel kastaba maayarka leyd ku xidhay waa muurta ay ku saabsanayd faalladeena murqaanku iyo nafarkii Abubakar Muuse ee masallaha nagula qaylay waana qalinkiina bahalkii oo qurux bila fadhiya intaan murqaan la mid ah ku kulmi doono haddaad ilaahayna faalla ka doonsan ismaynaan arag afkeedu way Sulaymaan nabaday Bordery Money Exchange sariflaha istabamarinta lacagaha danabaysan iyo kuwa dareensaabad kale dollar iyo cash ka sarifo Bordery Z324 idahab 932434 ama booqo xarunta guud ee Bordery wadada madaxtooyada hormarta laynka wasaaradda xanaanada xoolaha shirkadaha Telesom iyo Somtel ayuu dhaxeeyay